habeennimadii Oktoobar 1969 oo maanta kala ku beegnayd ayay saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya hab afgambi ah kula wareegeen talada dalka 7 bari kadib markii la dilay madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake. dhowr maalmoodse magaalada Muqdisho waxaa ka socotay kulamo aanu kala kac lahayn oo ay lahaayeen xisbiga SYL oo hogaaminayay dawladii rayidka ahayd balse laguma simin in meeldhalkii go'aanadeedu ay meel maraan. si cad looma garanaynin cidda hogaaminaysa ciidamada talada la wareegay hase yeeshee waxay kala shaandhaysmeen 1 November markaasi oo la soo saaray liis 25 xubnood ka kooban oo xubnihii sare ee kacaanka ahaa. 1970kii dawladda kacaanku waxay si adag ula dagaalantay qabyaaladda waxaana dalka u qaatay nidaamkii hanti wadaagga ahaa ee cilmiga ku dhisan. waxaa la laalay dastuurkii dalka. hogaamiyihii golaha sare ee kacaanka madaxweynihii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ahayd ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu kacaanku bilaabay taakulaynta agoomaha iyo dadka danyarta waxaase xoogga la saaray in dawladdu ay ganacsiga kala wareegto ganacsatada. Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre oo arrimahaasi ka hadlay kobcinta dhaqaalaha dalku waxa uu yiri Jaale gabar baa walaalkeed naas ka qabtay waxay tiri naaska walaalkay qabtay hadba waa saan ka dhigta waxaan haatan anagu leenahay markaanu taayeelaynay ummadda Soomaalida oo badan maslaxadeedan ula soconay marka hadee ninkii beecushariga ahaa waa hadba soo ka dhigta hadii uu taas u gartana waa nin fiican hadii uu kaliya anoolaada inta kala hadhimato oo soo gartana isagay jirtaa laakiin anagu dano naga ma hayso waxaan ku leeyahay ninkii hadda xoolaha lahaana horay baan ula hadalno waxaanu niri u leexo xagga warshadaha oo annaguna aan kala shaqeyno oo dawladda nafteeda ha kala qayb gasho oo share ha yeelato ama qaar ha yeelato kuwii shaqaalaha ahaana dawladda tanba shaqaalaha leh dawladda nafteedaba iyaga leh shaqaalaha iskale iyo dhalinyarada yaa iskale dadka naga waaweyno bacdama ay yihiin dadkii caruurtaas sheegaya dhalay danba annagana waajibkana way inaan caruurtii korino oo weyneyno oo iyaga mas'uulka u gudbino anagu meeshii haysanino kaligana anaan xukumin. ciidamada ayaa la dhisay murtida iyo suugaanta ayaa la hormariyay waxaana aad loogu dheeraaday koolkoolinta kacaanka iyo ammaanta madaxweynaha oo sifo kasta loo amaanay. Yo
dad badan oo Soomaaliya waxay qiraal ku yihiin in qaranimo xoog leh qiyamkeedu sareeyo ay ka jirtay Soomaaliya koob iyo 20 sano oo militarigu gacanta ku hayay talada dalka kaabayaasha dhaqaalaha ayaa la dhisay tiirarkii ugu waaweynaa ayaa la hirgeliyay hase yeeshee qodobka ugu muhiimsanaa ee kacaanku ay qabteen waxay ahayd qoristii afka Soomaaliga hase yeeshee dhibaatooyin waaweyn oo kumanaan qof ay ku dhinteen ayay sameeyeen hogaamiyaashii kacaanka dhibaha waaweyn waxaa ka mid ahaa ku dhaqankii sharciye ka hor imaanayay diinta islaamka duqeynta waqooyiga Soomaaliya iyo burburkii ka dambeeyay koob iyo 20 sano oo maanta oo kale ay ku beegan tahay 49 sano ay ka soo wareegtay Soomaaliya waxaa luntay dawladdii dhexe awood lahayd ciidamo qaran oo awood lama jiraan xaduudaha dalku waa kuwa baylaha waxayna wali Soomaaliya ku jirtaa xaalad soo kabasha 49 sano oo kacaanka xilliga ay la wareegeen afgamiga militarigu ka soo wareegtay 28 sano kamida Soomaaliya waxay la daalacaysaa in dawladnimadeedii dib ay u soo kabsato hey afrikay hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiyada hurdoy hadbaun ay hurdoy hey afrikay hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiyada hurdoy hadbaun ay hurdoy amal sara hurdoy hayin sidisa hurdoy la hogaaminaya amal sara hurdoy hayin sidisa hurdoy la hogaaminaya lilama hilabde away hana dadade lilama hilabde away hana dadade doqombo habawsano weligeed halaysane sida xoolihiiba xiranada digreetadii ahayd axdiga koobaad ee kacaanka waxaa lagu qoray 13 qodob oo saldhig u ahayd mabaadi'da kacaanka qodobadii ku saabsanaa siyaasadda dibadda waxaa ugu muhiimsanaa in si dhab ah loo taageero dadiyowga xaquudirarka ah ee dalalka Afrika waagaasi ku jiray gumaysiga runtii kacaanka waa uu fuliyay ballamadaasi waayo 1973 shirkii ururka midowga Afrika OAU ku yeeshay magaalada Rabat ee dalka Morocco dhowr wadan oo Afrikaan ah oo ay Soomaaliya hormuud u ahayd ayaa loo xilsaaray xoreynta wadamada Afrika ee Boortaqiisku gumaysan jiray si loo meelmariyo qorshihii xoreynta wadamadii ku jiray gacanta gumaystaha waxaa Soomaaliya laga yeegleelay xiriyo lagu tababarayay dagaalyahanada gobonimodoonka Afrika waxaana loo leeyli baray mucaskar loogu carbiyay sidii ay heriyada gumaysiga isaga dulqaadi lahaayeen saraakiil firfircoon ayaa laga xulay xooga dalka Soomaaliyeed waxayna safka dagaalka la galeen dagaalyahanadii gobonimodoonka ahaa kuwaasoo si hufan ugu howlgalay wadamada Angola, Mozambique, Namibia iyo kuwa kale howshii jabhadeynta waxa ay ka soo hoyeen guulo iyo libin looga riyaaqay qaaradda Afrika